السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برتنا نقدر ونسوي في الشارع مقعد وسبير داير حمد في دوك ما ده حكاها لا يا دمر مرك علينا هاي واحد أمرنا صعبة دلكينا كل حقوق هذه اللي الدين حقوق دمر كسف عم بيقول هذا الشيء وقال مو شيء مش حقوق دمر كنا سيد الله إلى علينا دمر كنا وضع بقرب إن نقال بحجري إيش هرت دمر كنا maxaa isoo marka qof sheekh weyn su'aalay wuxuu dumarkiina maxaa lagu diiday inay salaanta ay rag kale ay salaamaan oo rag in yar oo gaar ah lagu banay wuxuu yiri idinku ma awoodaan boqoradiina in aad salaantaan wasiir may dad dhifa loo ogoliyay wuxuu yiri dumarkaygu marka anaga wada boqoro oo rag gaar ama in yar oo kulun baa loo ogoliyay salaamaan marka dumarka markii hablo walaalaha ay jiraan ama ay wayna ku dhaleen wayna kula dhasheen hatta hadii aysan kula dhan alaaba dhali doono wayna ku dhaxeen dumarka xuquuqdooda ii sheeg halkan kaga hadli maayo laakiin markii hablo walaalaha kula dhasheen aataanin ay hablo walaalaha kula dhasheen takaaweyn xuquuqdeeda ay kaaga baahantahay waxa weeye inaad u tixgelisid oo aad mataqaana fikirkeeda waqbash tan ka yarna xanaana ay kaaga baahantahay meel badan baan suugaanta dumarkeena ay laga hadlay suugaan yar aan ka dhahay hadaan dumar jirin oo dunida rogon tahay dayaxaas habeenkii irka sare ka daarneen qoraxduna dusheena ka iftiima duhurkii rogu muu dadaaleen dunyada ma eegeen noloshaan ma dooneen dulucdeedu waxay dumarka wax lagu yahay kulli fiidiyoona maanta ii sheeg ma doonaan ka hordhaco insha Allah bismillaah kariim inoo bilaa fiidiyo maanta waa fariin ku socota qof kasta oo gabar haysta iyo walaal kasta oo ay agtiisa ahaatay walaal gabar ah waxaad ku riyeeshaan arinta gabdhihiina iyo walaaladiina gabdhaha ah waxaadna ugu deeqdaan jacayl iyo xanaano midda yar si wanaagsan u xanaaneeya midda weynna arinkeeda muhiimad siiya waxaadna ka dhigtaan amiirad qaali ah ha u qabanina qaladaadka yaryar maxaa yeelay haddaad u qabataan waxaa halaabaya wanaagga dhexdiina yaalay iyo isku xirnaanshihiinii qalbiyadoodana ku beera deganaansho waxaadna ka dhigtaan qalbiyadooda kuwa ay ku weyn yihiin jacaylka ay idiin hayaan idinku ma ogidin ducadooda waxa ay noqon doonto xasuusnaada waxa ay idinka qaadaan inay idiin soo noqon doonaan weliba iyadoo ay la socoto duco iyo xasuuso wanaagsan u naxariista kuwa leh qalbiga jawharada ah ee idinla dhashay adigu ma ogid nolosheeda sida ay u maareynayso hadda si nolol ay ku dheehan tahay farxad ka hor intaysan duubsan ruwaayada xiran dharka bani aadamka ayagu waxay la mid yihiin marti wanaagsan oo mudan in la karaameeyo maalin uuna wayna faarujin doonaan haddaba walaalayaal u wanaagsanaada gabdhaha dhashaan iyo walaalihiina idinla dhashayba wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh